waxaa maanta lagu casuumay Soomaalida aqalka duqa magaalada ee London loona yaqaano City Hall-ka. Casuumadan ayaa ahaa midii labaad ee usbuucan lagu casuumo Soomaalida ku dhaqan magaalada London. haddaba Soomaalidan ayaa ah kuwa la dagaalama qaadka ama arrimaha loo yaqaano maandooriyaha si looga mamnuuco waddankan Ingiriiska. waxa ay wadeen ayna u gudbiyeen ku-xigeenka duqa magaalada London Richard Baines qayb jaad ah iyo saxiix aad u fara badan oo ay ka dambeeyeen in ka badan 72,000 qof oo Soomaalida ku dhaqan waddankan Ingiriiska. waxaa goobtaasi kaga qaabilay Richard Baines oo ah ku-xigeenka duqa magaalada London. ka qaabilidiina sidan ayay u dhacday. Mr. Deputy Mayor, thank you very much for taking the time to see us. I know you got a full day ahead of you, still taking the time to see us. We are grateful. And what we would like to ask as Somali community, I'm sure you are aware of the issues surrounding CAT. We have collected over 72,000 petitions asking the government to ban this drug. Will you give us the commitment to work with the Somali community? You know my commitment to helping the Somali community because they have been incredibly impressive over the last 18 months since we've been in mayoralty. This is a magnificent demonstration of what the community wants to happen. And given that we're now going up into a general election, this is a time to use your voice into other communities. sidoo kale Richard Baines ayaa hadaladiisa waxaa ka mid ahaa in uu kula dardaarmay ummadda Soomaaliyeed haddii ay dhibaato ku hayso qaadkan inay doorashada sanadkan dhacayo ka qayb qaataan si codkooda loo maqlo. waxaana uu yiri Richard Baines waxaanu jecelnahay inaan saxiixyadan iyo marduufkan qaadkan idinka qaadnay aan u gudbino wasaaradda arrimaha gudaha ee waddankan Ingiriiska si wax looga qabto arrintan. wuxuu sidoo kale u shacbixiyay ummadda Soomaaliyeed ee goobtaasi ku sugnaa in uu doonayo in uu Soomaalida hadaladooda iyo fikradahooda wanaagsan u ka maqlo had iyo jeer. wuxuuna yiri waxaan u soo dhaweynaynaa ummadda Soomaaliyeed gacmo furan haddaynu nahay annagu dadka maamulo magaalada London. ugu dambeyntii waxaanu waraysi la yeelanay dadkii goobtaasi ku sugnaa una gudbiyay saxiixyadii kana cabaadayay qaadka iyo dhibaatada uu maanta ku hayo ummadda Soomaaliyeed. haddaba waraysiyadoodiina sidan ayay u dhacday. waxa la yahamuna waxaan u meesha u nimi inaanu diibno petition qaadka ka soo horjeeda dad badan Soomaaliya saangareeyeen ka bacdi marka waxaan Soomaalida waxaan ka codsanaynaa inay support gareeyaan campaign-ka inay dhibaatada qaadka ka haysa inay ummadda ogeysiyaan. dadku hadda waxay u maleynayaan marka dadku ama politicians ama dadka waddankan haysta aad ka hadashid qaadka dhibaatadiisa waxay koranayaan oo Soomaaliduba adiga kalimaha cid kale ka hadashaan aragay. marka wax loo baahan yahay one voice, wax loo baahan yahay inay la soo yimaado codkooda ay badiyaan oo dadku si support gareeyaan. waxa la yiraahdaa Sara Maxamed waxaan halka u joogaa maantana sababta ugu weyn waxa weeye qaadka. sideedaba qaadka waan ka soo horjeednaa waayo familiyadii Soomaaliyeed oo waxaan arkaynaa maalin kasta uu effect u geysanayo dhibaataynayo reeraha kala tagooda. qaadku waa dhibaato weyn oo ummadda Soomaaliyeed haysata. waxaan qabaa in qof kasta oo Soomaaliya mas'uuliyad saaran inay tahay inuu sidii lagu joojin lahaa uu ka qayb qaato ama afka ha ahaato ama adinka ha ahaato. Abuukar Cawaale waxaad tahay qofka soo maaragtay abaabulay shirkan maanta maxaad u malaynaysaa inay ka soo bixi doonto markaad hadda u wareejiseen warqadihii saxiixa ahaa iyo jaadkii qayb ka mid ahba? bismillah runtii aad baan ugu rajo weynahay Soomaalidii dumarkeedii raggeedii odayaasheedii inaan gidigay halkan isugu nimaadno annagoo gudbinayna 72,000 qof oo saxiixday. rajadayadu aad bay u balaaran tahay insha Allah waxaan rajaynaynaa in maalin ay ahaataba la joojin doono. aynu bahalkan UK aan ka dhignaa meel qaad free ah from masjid university iyo environment peaceful si ay carruurtan ugu koraan. bismillahir rahmanir rahim magacaygu waa Cabdullaahi Cabdulqaadir Faatixaan ku magac dheerahay. waxaan maanta u nimid inaan qaadkaas dilaaga ah waa dilaa cidna nagama joojin karto. anigu waxaan aaminsanahay annagu inaan iska joojino. magacayga waxa la dhaarooda maanta waxaan xaqan u imay inaan bulshada Soomaalida taageero mujtamaceena Soomaalidu dhibaato weyn buu qaadku inagu hayaa. dhibaatooyinka waxa ka mid ah familiga iyo kala burburay ciyaalkii iyo motivation haysanin oo iskuulkii dadaaleynin waxbarashadii buu hoos u dhigay. aniga waxa la yiraahdaa Cabdullaahi Abuukar Ducaale
waxa wanaagsan qaadku in inagu aynu iska joojinaa dadka kale waxaan anigu maqlay Chinahu wuxuu dilay malaha 1 milyan bay dileen obiin cuna waxaanay u dileen inta kale inay badbaado bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waxa la yiraahdaa Cabdishiid Maxamed Daahir qaadka runtii dhibaato weyn buu London ku hayaa arintaas laga hortago waxa nasiib darro ah حتى هذا الصومالي أبحي لها أو صومالي كفايد له حباب متقانا دم هاتين بسم الله الرحمن الرحيم أوعي وعبد الله عبد السلام وحن أن أشجع نمط الصوماليات جودها يدبدب إني تشوشيان قاتك نقاله هلا در رهيا وهلا در رهيا متقانا نلشة مستقبل هلا در رهيا ومدى الصوماليات هيسكت ديسو وحن دبعت أهين وبكرنا يقاتو من كان هيو maaha markii ugu horeysay ee lagu casuumo ururkan London Somali Youth Forum qaybteeda Stop Qaad UK kuwaasi oo haatan la dagaalamaya inay ka joojiyaan wadankan Ingiriiska in uu qaadka soo galo Abuukar Cawaale oo kamid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ku sugan magaalada London ayaa sanadahan dambe wuxuu la dagaalamayaa inuu ka joojiyo qaadka kaasoo u tilmaamaya inuu qaadku yahay mid aad u xun oo ummadda Soomaaliyeed dhibaato ku haya نبيل حسن نور تلفزيون كا يونيفرسال عاصمة ودن كا إنجليز كا مقالة لندن